maalinta Jimcaha waa dabiiqada toddobaadka waana maalin inta badan dadku ay ka nastaan shaqooyinka ay ku jireen toddobaadkaasi oo dhan. Haddaba shacabka Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran waxay u damaashaa tagaan maalmaha Jimcaha xeebaha Muqdisho sida xeebta Jasiira. Honkebel TV waxa uu doonayaa in daawadayaashiisa uu la wadaago sida shacabka Muqdisho ay ugu damaashadaan xeebta Jasiira oo kamid ah xeebaha loogu jecel yahay damaashaadka Jimcaha. Ma aha kaliya shacabka dadka taga maalmaha Jimcaha xeebaha Muqdisho waxaa ku jira mas'uuliyiin iyo qurbo joog kuwaas oo dareen farxadeed ku qaata xeebaha iyo damaashaadka badda. Qaybaha bulshada oo aan u kala socneen ku damaashaadka xeebta Jasiira waxaad arkaysaa caruur, haween, dhalinyaro aad u faraxsan oo jawi farxadeed ku qaadanaya xeebta Jasiira. Waxaad arkaysaa sidoo kale boqolaal dadweyne ah kuwaas oo ku sheegaya in dareenkooda farxad ay ku dareemaan joogitaanka xeebta Jasiira ay ku iloobaan dhibaatada shaqada ee toddobaadka ay ku soo jireen. Si aan dareenkooda wax badan uga ogaano qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku sugnaa xeebta Jasiira Jimcahan, waa kuwan iyagoo la hadlay muuqaal baahiyaha Honkebel TV xaruntiisa Muqdisho. Baada Honkebel waa idin salaamaya. magacayga waa Maxamed Nuur Xasan Iftiinshe, waxaan ka mid ahaa baas saxafiyiinta. runtii waxaan qayb ka ahay dadka maanta halkan booqashada dalxiiska u timid. runtii maalinta Jimcaha ay imaanaa halkan waxaan ku qaadanaa waqti maadaama maalinta Jimcaha ay tahay maalin dadku ay wada nasanayaan. goobtan waxaa loogu talagalay waa goob in lagu damaashaado, lagu dawaashto. marka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan Maxamed Xasan Qays aday goob shaqo u joogtid aniga halkan dalxiis u joogo inaan ku wada kulanno. aad iyo aad magacaygu waa Farxaan Qaliif, waxaan ka imaaday degmada Wadajir qaasatan Bulxubey. والله ما تحضرين يا فرحات آدي آد بالله محيا ضدك أنت دماشات سوى آدين مرات قاركود وحاجة على مالتي عم فسح عليه سيد الجمعة وكلينا أنت ما ذو أنكو كعوي وفرحات اسكو أبورو ضدكاس بولشداس باشالس إنكم معنا لباش على نجعله ما أنت وحنا هالكان هو ميدان فرحات الجمعة وحنا كو دوالنا جزيرة حالة أمان كانوا آدي في عنتها ما دام ودوينكم مقالة مقدسنا الغير وحكي من الدقمة دركيلي حالتي إنه بقول كيو بقول ما أنت فرحة تي في هو كيف الله أمي هدعينا يا ما دام يقول هذيك بالشدة الصومالية. بسم الله الرحمن الرحيم. مغرب عبد الرحمن عمر فرح وحنكي ماذا حافظة كوجدي خاصة كريسكا ما هن مركي وهرسي ما هن مركي وهرسي عن جزيرة ماذا حبت جزيرة دمشق كأدي أدبا وفرح سنة. كدوات شن إلى 20 سنة أي دلك كم مغنيت waxay xeebta Jasiira u soo kaxaysay caruurteeda iyadoo waqti kooban dalka joogta si dareen farxadeed ay ula qaadato waxay dhabta ku weysay ilmo aad u yar. waxay Honkebel TV u sheegtay in 24 sano oo ay dalka ka maqneed aysan dareemin farxadda ay maanta ku dareemayso xeebta Jasiira oo ay la qaadanayso caruurteeda. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. anigoo ay gabar Soomaaliyeed oo mar dhow ama wadankayga hooyo laba bilood aan joogay wadanka ama wadanka Sacuudi Carabiya maanta xabas mash ibarwax uga ah maanta wadankayga maanta oo joogo diwan casa oo Jasiir maanta aan joogo ay la ugu maadcina oo shukr Ilaahay alxamdulillah shukrullah wadanka waxaan ka maqnay 24 sano ka maqnay maanta maxaa jooga wadankayga oo aan jooga cabsi laheenin tarxiil laheenin baqti laheenin ama aan ku nool alxamdulillah shukrullah maanta ay wareys alxamdulillah ma yaa loo bilan jooga dartaan ani arurteen socnaa كل بدي كجرانها ما عندنا شالن صباحني أنت مش صباحني الحمد لله الحمد لله وأنت أنت أنا بملهنا أنت أنا جارس بملهنا الحمد لله ما لك لا يصير دمن ما أنت حسوا جاري بدي يصير أنا جاري وحنصير هذا ما لك لا ليه يمسك خلاص في عقلها إن شاء الله هدي الله يرضى والله بدك الحمد لله إحنا جم خن ما جرته ودك كان إحنا ورانا ما جرته لو تفرس ما تقول أنت لو بالأنجو لو بلا ما تأي خم بين لا تفرس بدون الشيء أنجري. أنت عاد حيبت جزيرة جوكتيد waxaad arkaysaa doonyo yaryar kuwaas oo dadka lagu geeyo xeebta meelaha u dhow ee badda gudaheeda si ay u dareemaan degenaanshiyo farxadeed. sidoo kale xeebta waxaa lagu iibiyaa qalab noocyo kala duwan ah kuwaas oo laga helo badda gudaheeda. halkan waa xeebta Jasiira ee magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa jimco kasta u soo damaashaa taga boqolaal dadweyne ah oo ka yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobolada ku dhow sida Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. Maxamed Qays Xasan Maxamed, Honkebel TV, magaalada Muqdisho.